maalintii Isniintii waxaa ka dhacay magaalada London munaasabad boqolaal qof ay ka soo qayb galeen waxaana loo dabaaldegay 25 guurada ururka loo yaqaan Muslim News Award oo ah urur ay leeyihiin muslimiinta ku dhaqan wadanka UK kaas oo qiimeyn ku sameeya guulaha ay gaareen iyo sidoo kale waxyaabaha bulshada Ingiriiska ay ku soo kordhiyeen shakhsiyaadka hal-abuur kale iyo sidoo kale ganacsiyada ay leeyihiin muslimiinta ku dhaqan wadanka Ingiriiska munaasabadaas oo goobjoog ka ah ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron ayaa waxa abaalmarino la guddoonsiiyay sharikadaha iyo sidoo kale shakhsiyaad kala duwan oo loo aqoonsaday in waxyaabo la taaban karo ay ku soo kordhiyeen bulshada wadanka Ingiriiska dhinaca Soomaalida waxaa ka mid ah sharikadaha loo gartay in abaalmarino la siiyo sharikada xawilaadda lacagaha ee Dahabshiil oo loo gartay inay guulo la taaban karo ay ka gaadhay adeegyada ay bulshada u qabato hadal qoraal oo ka soo baxay maamulaha guud ee sharikada Dahabshiil Cabdirashiid Ducaale ayaa lagu sheegay in sharikada Dahabshiil ay aad ugu faraxsan tahay inay qayb ka noqoto abaalmarintaasi Muslim News Award sanadkii 2013 Dahabshiil waxa loo aqoonsaday kambanigii ugu wanaagsan ee sanadkaasi iyadoo lagu abaalmariyay doorka wax ku oolka ah ee ay ka qaadatay maalgelinta bulshada iyo sidoo kale horumarinta deganaanshiyaha dhaqaalaha ee wadamada soo koraya marka la eego dhinaca xawilaadaha maamulaha sharikada Dahabshiil Cabdirashiid Ducaale waxa kale oo uu sheegay in sharikada Dahabshiil ay ku faraxsan tahay abaalmarinaha la siiyay Faslur Rahman Khan oo loo aqoonsaday injineerkii ugu wanaagsan iyo sidoo kale Dr. Farid Khan oo loo qiray inuu guulo ka keenay dhinaca sayniska iyo tiknoolajiyadda sidoo kale maamulaha Dahabshiil waxa kale oo hambalyo u diray ciyaaryahanka Mo Farah oo isna ku guuleystay abaalmarinta loo yaqaan Fiisa Hashimi oo ku mutaystay guulaha uu ka soo hooyay tartanka dhinaca ciyaaraha sharikada Dahabshiil waxa hore loogu aqoonsaday taageerada ay ka geysato dhaqaalaha wadanka Soomaaliya ugu dambeyntii qoraalkani waxa lagu sheegay in kulan toos ah uu dhaxmaray ra'iisul wasaaraha wadanka Ingiriiska David Cameron iyo sidoo kale maamulaha Dahabshiil Cabdirashiid Ducaale waxaana Cabdirashiid Ducaale uu bandhigay ra'iisul wasaaraha wadankaasi David Cameron muhiimadda ballaaran ee lacagaha loo xawilay u leedahay bulshada ku dhaqan wadanka Soomaaliya maadaama wadanka Ingiriisku uu ku hawlan yahay sidii xal loogu raadin lahaa dhibaatooyinka ka taagan wadanka Soomaaliya